nin xilkas ah oo mas'uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhegdhego kursi Soomaaliyeed maanta cidiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo laakiin xilkasnima jirta xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado nololina ma baaqi ahaato fariinta labaadeen doonaya inaan u diro wuxuu yahay waxay tahay bini aadamku hadduu quraanka ilaahay soo dejiyay iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan ka warhaynin waxa fiican inuu kuwaana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo maanta wax way 20 jir ilaahay uma xil qarinin xawaadista adduunka ka dhacayay waa aayad ilaahay oo taagan weeye wax lagu qaato waay war aaway ragii kuraasta isku dhajiyay xaggay ku dambeeyeen ee uquud min as-siniin ka talinaya caalamka meelo kamida زين العابدين في تونس آوي شين العابدين ده آوي بوتفليق الجزائر آوي مبارك مصر آوي علي عبد الله الصالح يمن آوي قدافي أفرتن سنة كبدا بليبيا كتلين آوي ورآوي مدحدي أدونك واتقان ما أنت هدان هلي الله وحي نوغصو ورما وحا قبرك كوهايستا iyo ilaahay hortiisa waxay la tagi lahaayeen wax badan baa la inoo sheegay laakiin lagu waan qaadan maayo ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qeyrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacay in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaad waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiigiisa inuu daato waxaan ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dilay in la xagto dhibaato sababtaada ku gaadho hadii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo kaliga oo qaawan adaa mas'uuliyadeeda qaadi doona ku talagal tanaazul kursiga lamadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaska baa looga tanaazulaa tanaazul waa khayr iyo maslaxo